Guddida qandaraasyada qaranka Somaliland ayaa maanta shaaciyay mashaariic hore loogu tartamay oo ay soo shaaciyeen Guddida qandaraasyada qaranku. Waxay shaaciyeen Guddida qandaraasyada qaranka mashaariicdaasi waxaana goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Torno iyo xubnaha Guddida qandaraasyada qaranka iyo shirkadihii ku guuleystay iyo kuwii laga guuleystayba. Ugu horreyn waxaa shaaciyay shirkadaha mashaariicdan kala duwan ku guuleystay gudoomiyaha Guddida qandaraasyada qaranka Somaliland Nuux Maxamed Xuseen. Iskuulka Hargeysa waxaa ku soo tartamay 6 shirkadood waxaana ku guuleystay Udub Construction Company. Iskuulka Sarmaayo waxaa ku soo tartamay 10 shirkadood waxaa ku guuleystay Kadar Construction Company. Iskuulka Gar-adag waxaa ku soo tartamay 7 shirkadood waxaana ku guuleystay Goran Construction Company. Iskuulka Weerarta waxaa ku soo tartamay 4 shirkadood waxaana ku guuleystay Awaale Construction Company. Iskuulka Masalaha Gorod waxaa ku soo tartamay 22 shirkadood waxaana ku guuleystay Nal Construction Company. Iskuulka Hunduli waxaa ku soo tartamay 7 shirkadood waxaana ku guuleystay Lan Construction Company. Iskuulka Higlaale waxaa ku soo tartamay 5 shirkadood waxaana ku guuleystay Same Construction Company. Iskuulka Ina Cunaaye waxaa ku soo tartamay 6 shirkadood waxaana ku guuleystay Al-Sharaf Construction Company. Iskuulka Ceelcaanood waxaa ku soo tartamay 6 shirkadood waxaana ku guuleystay Shire Construction Company. Iskuulka Shumux waxaa ku soo tartamay 4 shirkadood waxaana ku guuleystay Macruuf Construction Company. Iskuulka Sayla Bari waxaa ku soo tartamay 8 shirkadood waxaana ku guuleystay Bilandeeqa Construction Company. Iskuulka Biyashiinaha waxaa ku soo tartamay 24 shirkadood waxaana ku guuleystay Global Construction Company. Iskuulka Balliga Cas waxaa ku soo tartamay 23 shirkadood waxaana ku guuleystay Mabsuud Construction Company. Iskuulka Duruqsi waxaa ku soo tartamay 5 shirkadood waxaana ku guuleystay Bakal Construction Company. Iskuulka Mandheera waxaa ku soo tartamay 10 shirkadood waxaana ku guuleystay Cheap Construction Company. Iskuulka Aadan Abakor waxaa ku soo tartamay 6 shirkadood waxaana ku guuleystay Madina Construction Company. Iskuulka Qamarji waxaa ku soo tartamay 4 shirkadood waxaana ku guuleystay Qaydar Construction Company. Iskuulka Balle Cabane waxaa ku soo tartamay 13 shirkadood waxaana ku guuleystay Hoobaan Construction Company. Iskuulka Laflamood waxaa ku soo tartamay 3 shirkadood waxaana ku guuleystay Ruxan Construction Company. Iskuulka Ismaaciil Yoonis waxaa ku soo tartamay 5 shirkadood waxaana ku guuleystay National Construction Company. Iskuulka Darbi Dawan waxaa ku soo tartamay 2 shirkadood waxaana ku guuleystay Nuuriye Construction Company. Iskuulka Gorayacad waxaa ku soo tartamay 2 shirkadood waxaana ku guuleystay Pillar Construction Company. Iskuulka Shulke waxaa ku soo tartamay 3 shirkadood waxaana ku guuleystay Jiidali Construction Company. Iskuulka Bixin Dhallaax waxaa ku soo tartamay 5 shirkadood waxaa ku guuleystay Softo Construction Company. Laabka laga dhisayo Salaxley waxaa ku soo tartamay 8 shirkadood waxaana ku guuleystay Kibis Construction Company. Laabka laga dhisayo Baligubadle waxaa ku soo tartamay 5 shirkadood waxaana ku guuleystay Tayadis Construction Company. Waxaa halka ayaguna ka hadlay agaasimaha Guddida qandaraasyada qaranka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Torno iyo shirkadii laga guuleystay iyo kuwii guuleystayba iyo xubno ka mid ah Guddida qandaraasyada qaranka. Waxa aynu u ballansanahay ama xubnaha guddida oo gudoomiyuhu hormuud yahay ay noogu dhawaaqi doonaan go'aankii aynu wada sugaynay sida qaranka oo maamulay hawshan qandaraas bixinta sida daaha furan ay arkayseen shirkadihii helay iyo kuwii laga helayba ay fureen u maamulay. Waxaan ku faraxsanahay oo kale in wasaaradda waxbarashadu ay 26 dhisme ay ka dhisto miisaaniyadeeda. mid baan shirkadaha kula dardaarmaya waxa weeye qandaraaskii waa qaadateen qoladii guuleysatay way qaadatay laakiin waxa loo baahan yahay inay wax tayo leh qaranka u dhisaan ha u qaadanina inaan la idin daba socon. Ka shirkadahan waxaan tartamay 12 jeer hore
ومركي لبي تمنادان قندراس كان كترتمو كوبية تمن كهرة ولا يجي هلاي وأنا نهبليي ما أنت لو قندراس كي لبي تمنادان وترتمو وأنا هلاي رنتي وان وح آد ياد فين مقرنا يصير له فرحه وان ترتمي الحسكول بان قرطي الحسكول بوان واي حبنا وان كويس ده وحس أنا آد يا آد بنقول فرح سنة